iyagu sabool maaha saxrayo abaar maaha debeen xumaadna kama dhicin dhulka iyagu sabool maaha saxrayo abaar maaha debeen xumaadna kama dhicin الدكتور مويديو سند وليبا وخير الدكتور مويديو سند وليبا وخير تتذيو سلا كرسوفين كشبنا خامها للتابشان سبقنا كلنا waxaanu goor barqa ahayd aanu ka ambabaxnay caasimadda gobolka sool iyadoo xilligaasi lagu jiray xilli barwaaqeed oo ay baadka iyo biyuhuba isgaadheen hase haatee intii aanu sii soconnay waxay indhaha iyagu qabanayeen dhulkoo barwaaqaysan biyaha oo qulqulayay doogii oo isgaadhay xoolaha oo dhogortoodu fiicnayd iyo bilicsamida deegaanka oo ahaa mid aanay indhahaagu marna ka jeedsanayn waxaana safarkaasi igu wehelinayay niman dhallinyaro ah oo uu ka mid ahaa nuur xasan nuur oo isagu ka yimid dalka kanada run ahaantiina aad u xiisaynayay inuu soo arko deegaanka hoolhol oo uusan abidkii hore u arag sidoo kale intii aanu jidkaasi sii soconnay waxaannu dhexda ka sii qaadnay haweenay deegaanka ah oo baadigoob ugu jirtay xoolahooda waana tan iyadoo weydiinaysaa kuray geel jiro ah oo markaasi geel waday yarow eedo ilma aadan cabdisagaar maya xoolahoodii ma aragtay yaa maxoolii barqadii soo maray kaan kadisa haydeen maxoolii barqadii soo maray baad haydeen ee xagga shee ka yimid وليبا وخير الدكتور مويديو سند وليبا وخير تتذيو سلا كرسوفين كشبنا خامها للتابشان سبقنا كلنا تبتديو ديلا كالسوفين كشبنا همها للدبشا سبقنا كلنا سيدك بانو مالا ثم البانو قلنا سيدك بانو مالا ثم البانو قلنا daawadayaal halkan aanu joognaa waa howlhowl weeye oo ka tirsan gobolka sool gaar ahaan magaalada laascaanood run ahaantii ceelkan waxaa markii ugu horraysay la ogaaday wakhtigii dowladdii maxamed siyaad barre ay dalka ka talinaysay siba maalmihii ugu dambeeyey ama cimrigeedu markii uu soo dhammaanayay waxaananu jecel lahay mustaqbalka dhow haddii allaha awoodda lihi oggolaado in holhol ay noqon doonto meel loo soo shaqo tago caalamkao dhanna laysaga yimaado lama huraanna waxaa noqon doonnaa inaannu dad badan weydiin doonno fiisayaal iyo baasaboorro waa marka ay wax isku dubadhacaan sidaas iyo daawasho wanaagsan
لبا فرس وعجي شوي ما وتقدر لا لا لو صوحداyo shalay laba lagu sooxdayo وبعد دونا وتي يلا كلم daawadayaal halkan aanu maraynaa waxay u dhaxaysaa tukarraq iyo holhol waxaana xilligan ku dahay roobab aad u laxaad leh kuwaas oo noqday kuwo biyadhiga dhammaan dhulkan aanu hadda soo marnay oo dhan waxaa ka dhacday nimco ku sug barwaaqo ku gaadh waxaan halkan wada joognaa nuur xasan nuur oo isagu ka yimid waddanka Canada markaa waxaan jeclahay inaan su'aal weydiiyo nuur sidee baad u aragtaa deegaankan halkan aanu joogno imika وفعناها وحكوا فعنا كندا هذا وكفعنا هاي فاميلي قاعدين هكنا جوغان يوم ماشي عدلا كتو تغنا هاي هذا حاركنا هذا حن اويل كادنا حاركنا بور او كتر جولد دايموند ها يا كان يدا انا قال عبي معان واي مكانتي مكاكني ما تنين عبتي واي we just left this morning from Hal and it was very good in the oil well, and we saw a mountain with gold in it, golden diamonds. Yeah. And soon when I came, there's 2 deers, a boy one and a girl one in my grandma's house. And I really like this place except from Canada because there's more family here. And we saw when we were going to Hal, we saw a fell down car that was flipped over. Flipped over car and baby goats and camel. Okay. When we just came from here, we were thirsty, so we drank camel milk. And camel milk, it's very good for you and it helps your blood cells. So drink it. waa tahay in saaka subaxnimadii ayaanu ka soo safarnay magaalada Laascaanood ee gobolka Sool ee caasimadda waxaan u soo anbabaxnay dhankaas iyo dhulkii khayraadka deegaanka Ilaahay ku manaystay gaar ahaan holhol oo run ahaantii dad badan ay maqlaan waxaanu jecelahay inaan sawir muuqaal ah aan idinku soo bandhigno waxyaabihii aanu kala soo kulannay intii aanu safarka ku jirnay gaaban ee u dhaxeeya Laascaanood ilaa holhol waxaanu haatan joognaa kaam yar oo la yiraahdo Beyla oo halkaasna cabaar ku yar nasanayno xooga caana geel oo freshna ragga qaarkii waa isku hubsadeen goordhowna waxaanu u diyaar garoobaynaa sida aanu u sii dhammaystiri lahayn safarkayagii oo ku siman ilaa iyo Laascaanood waxaa kaloo aan jecelahay inaanu sii marno tukarraq oo aan doonayno inaan kula kulanno qaar ka mid ah odayaasha deegaankaas oo haddii ay noo suurto gasho haddii kalena hore ayaanu u sii wadanaynaa safarkayaga sidaas iyo kulanti dambe oo xiiso leh